السلام عليكم صاحبيال halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 5 talaabo oo aad ku samaysan karto ama aad ku dejisan karto qorshe wax akhris hadaba saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalka sida loo sameeyo qorshe wax akhris marar badan ma isaragtaa adigoo ka caajisay inaad wax akhrido ma kugu adkaataa inaad dhammaan wada koobto hawlaha wax akhris ee ku yaala hadaba waxaad u baahan tahay inaad samaysato qorshe wax akhris oo shaqeynaya qorshaha wax akhrisku waa jadwal habaysan oo maado walba ugu talagalaya waqti lagu diyaariyo oo u gaar ah ahmiyadda ay leedahay inaad yeelato qorshe wax akhris muhiim ay u tahay ardaygu inuu yeesho qorshe wax akhris oo u xadidan waqtiyo u gaar ah oo uu yeelay wax akhriska oo qura inuu ardaygu yeesho qorshe wax akhris waxay ka caawisaa inuu ka dhigo noloshiisa waxbarasho mid isku dubaridan waxay sidoo kale awood u siisaa inuu maamuli karo waqtigiisa hadaba waxa lagu la taliyaa in halkii saac kasta ee 10 ah baad u hesho 2 ama 3 saac oo akhris ah hadaba taas macnaheedu waxay tahay ama tusaale u tahay haddii aad leedahay 2 saac oo xisaab ah toddobaadkii 2 xiisadood waxaad u baahan tahay 4 ilaa 6 saac toddobaad kasta inaad akhrido maadadaas xisaabta oo kale ah hadaba inaad yeelato qorshe wax akhris waxay ku ogolaanaysaa inaad maado walba u heli karto waqti ku filan adigoo isku beegaya waqtiyada firaaqada iyo hawlaha ku yaala arday walba waxa uu yeelan karaa qorshe wax akhris oo u gaar ah ma jiro jadwal guud oo ku habboon qof walba maadaama uu qorshuhu ku xidhan yahay waqtigaaga firaaqada nooca waxbarashada aad qaadanayso qaabkaad jeceshahay inaad wax u akhriso hadaba xaddiga waqtiga ee aad u baahan tahay inaad wax ku akhrido iyo qodobo kaleba ardayga qaar inay toddobaadkan dhammaadkiisa saacado badan shaqeeyaan ay ka doorbidaan inay maalin walba 1 saac wax akhriyaan muuqaalkan kooban waxaan ku eegaynaa 5 talaabo oo fudud oo ay tahay inaad qaadato si aad u samaysato qorshe wax akhris oo shaqeynaya talaabada koobaad ama qodobka koobaad ogow ujeedka aad u leedahay ujeedka ama yoolka ama goolka aad ka leedahay inaad wax akhrido hadaba ugu horeyn waxaad u baahan tahay inaad ogaato sababta aad wax u akhriyayso iyo ujeedooyinka aad leedahay isweydii waa maxay natiijada aan ka rabo inay ka soo baxdo dadaalkayga inaad ogaato ujeedooyinkaaga waxay ka caawinaysaa inaad u dejiso qorshahaaga qaabka u sahli kara inaad gaadho ujeedooyinka aad leedahay talaabada labaad samee jadwal ama xisaabtan ama samee jadwal muujinaya hawl maalmeedyadaada ama oo dhan hawl maalmeedyada maalintaad qabanaysid oo dhan deji qaado qalin iyo warqad samee jadwal muujinaya maalintaada oo dhan saacad walba ku horqor hawshaad caadi ahaan qabato saacadaas maalin walba jadwalkan waxa ay tahay inay ku jiraan dhammaan hawlaha aad qabato maalintaada oo dhan ha noqoto saacadaha waxbarasho leedahay saacadaha nasashada leedahay sidoo kale waqtiyada hurdada cuntada iyo cibaadada intaba markaad dejiso jadwalka hawl maalmeedkaaga waxa ku soo baxaya waqtiyo firaaqo oo ku habboon inaad u geyso wax akhriska talaabada saddexaad hadaba deji jadwalka wax akhriska tax dhammaan maadooyinka aad dhigato ee aad rabto inaad akhrido kadib markaad garatay waqtiyadaada firaaqada u astay maadooyinka kala duwan waqtiyada firaaqada ee ku soo baxaya hana ilaawin inaad cadayso saacada aad bilaabayso iyo muddada aad ku tala gashan tahay inaad ku jirto wax akhriska mar walba ha ahaado qorshahaagu saaxiib mid macquul ah hadaf si loo gaadho waxa jira 2 talaabo lagama maarmaan ah qorshayn iyo fulin haddii qorshahaagu noqdo mid waaqici ah ku fog waxa aad kaanaysa talaabada labaad oo fulinta talaabada afraad waxay ka hadlaysaa ku talagalka waqtiga nasashada ama waqtiga aad wax akhriska iyo jadwalkaaga aad u kala dhigtay wax akhrisku wuxuu uga faa'iido badan yahay waqtiga aad maskax ahaan iyo jidh ahaanba firfircoon tahay marnaba waxa akhriin adoon daalan hana ku talagelin inaad saacado dhaadheer wax akhrido adoon qaadan nasasho kugu filan mid ka mid ah qaababka loo asteeyo waqti nasashada ayaa ah inaad 40 daqiiqo kasta qaadato 15 ilaa 20 daqiiqo oo nasasho ah tani waxay maskaxdaada ku ilaalinaysaa inay ahaato